qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay gobolada Salal Awdal iyo guud ahaanba Somaliland andhaho oo xiisadu cirka isku shareertay Somaliland oo baabu jahannaba isku furtay baabu jahannaba ayay Somaliland isku furtay xaalka oo cirka isku sii shareeray magaalooyinka Saylac iyo Boram oo gabi ahaanba laga diiday aqoonsiga Somaliland labada magaalo aqoonsiga Somaliland waa laga diiday dhalinyaradii hubka qaadatay waxay ku hanjabeen in ay noqon doonto mid wadadii ay ku xiroobi lahaayeen ay u mar lahaayeen wadadii xaq ay mar lahaayeen inay midani tahay labada qolaba cirka ay xaaladii gaadhay gabaxana goboladaasi xiisadu cirka ay ku laalanta beesha ciise weyne deegaano hor la ayaa la sheegay ciidamadoodu inay galayaan oo isku balaarinayaan oo ciidanka Somaliland ayaa wajahaya go'doomin weyn ay wajahayaaba la leeyahay maadaama dhalinyarada hub culus u gacantooda galay labada dhinacna ay soo gaaray saarad military oo kala duwan sidoo kale dawladda Ethiopia waa dhinaca xuduudka xogu waxay sheegeen dhaqaaqyo xooggan inay ka wado oo dhinaca labada deegaan waa Awdal iyo Salalba inay labada dhinacba ay ku leedahay baa la leeyahay saameyn badan oo hub badan ay gudaha gelinaysa deegaanadaas sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona xildhibaan Maxamed Abiib ay xogtu sheegaysaa in laga yaabo in xabsiga loo taxaabo dhalinyarada reer Boorama ayaa waxaa la leeyahay wuxuu u sheegay in ay ciddii maartay aqoonsi sheegta ama Somaliland xafladaha loo dhiga dhahda inay maartay madaxa ay ku dhuftaan waa Boorama sheekada ugu badan ee taalo waay xildhibaan Maxamed Abiib oo boolisku ay caydsanayaan maadaama dad badan oo aqoonsiga Somaliland ka hadlay ama si dad badan uga hadlay ama diidayba oo yiri midii saxda ma aha xabsiga la dhigay oo liinta cabayaan sidoo kale adduunkii oo dhan ayaa indhaha furay maalinta Isniinta ay ugu soo aadan qaramada midowga golaha ammaanka qaramada midowga loo dhan yahay ayaa ka fadhiisanaya xaaladan si degdeg ah dawladda Soomaaliya ayaa codsatay baarlamaanka dalka Soomaaliya labada aqal madaxweynaha ayaa hortagaya maanta hortagaya si maartay xaaladan looga hadlo sidoo kale xildhibaanada Somaliland ka soo jeeda waqooyiga xamar ku sugan mowqifkooda cadayn doona ayaguma mushaar qaatayaal Somaliland u shaqeeya xamar lacagta ka qaataba misa waxay qaadayaan tallaabo looga hortagaya arrintan waxaa la arkay ninka Saalax la ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo shirki dhaxmaray Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka aad uga xun meesha oo indhihiisa intuu bedelmay oo madaxa haystay kaamiro sawir laga qaaday isagoo dadkii kale dhan ay wada doodayaan uu asaguna la leeyahay muuqaalkiisa ay muujinayso inuu raalli ka ahayn arrinta Soomaaliya looga soo horjeedo Soomaaliya waa la surgufayaa wadaniga iyo ninka maartay jaajuuska iyo kalkaalka ayaa hadhaya yaa la kala saaraya qodobadaas ay faaqadayna khayri barnaamijka sheergaray meel fogna gaarsiya like waa muhiim muuqaalka ay fogeynaysaa idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantiin waxaan ku horeynaynaa gobolada Salal iyo Awdal ayaan ku horeynayaa beesha ciise weyne waxay la safatay ummadii Soomaaliyeed beesha ciise weyne waxay ku dhawaaqday inayna garab iyo gaashaan Somaliland u noqonaynin gobolkooduna u noqon doonin meel Soomaaliya laga gogooyo meel Soomaaliya ku kala tagtay inuu gobolkoodu noqonaynin in ay ka shaqeynayaan wada kasta oo lagu fashilnayo qorshaha Cabdiraxmaan Ciro wato ciise weyne waxaan leenahay ciise weyne wadaniyada Soomaalinimada weligiin bad udub dhaxaad u haydeen haddaad Saylac ka diideen in looga dabaaldo kala tagga Soomaaliyeed waa gul iyo gobonnimo ciise weyne soo hoyatay dawladda Soomaaliya fursad waxay haysataa maanta dad jecel ayaa jooga Saylac dad jecel ayaa jooga Salal dad jecel oo gobonnimada iyo midnimada ka shaqeynaya oo inay naftooda huraan diyaar u ayaa jooga dawladda Soomaaliya waa inay si degdeg ah gobolkaasi ay u gaarsiiso saanad military oo daayarta beesha ciise lagu qalabeeyo maadaama ay haddaba dagaal diyaar u yihiin ciidamada Somaliland ay xiriyaha ku buuseen oo ciidamada Somaliland ayna qofna xiri karin qofna ra'yigiisa ayna ka hor iman karin oo sidoo ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim galad dagaalku u yiri beesha ciise weyne ay wali dagaalkii ku jirto horta ciise weyne tallaabada ay qaadeen
وتلابة بوجادين مدن دولة الصومالية فرصة ذهبية أي هيستا ضد كاسمانتا ومالك كيف يسند ومالك اللي جوهر تجي لجوني قصتك لا فشلين الهوا مداس ومداس دين عبورة مية سمرون ما تجيه سيدو كلا داير تسمرون أيقونا ويدين إن كستو ماير كمجالات الأشياء إنه ضد كدبات بدن وجيسنا يو وضد كوحد يو وحفلات بين أو دقيو وضد كتونا قالوا يقوليه ولا ليالو عبد الرحمن عرها يسوع على هذين صور بس إلى جله فيديو يعني إلى الضوبة عندنا عنده بورا ما سيدا لوجا دي بتبحي بورا ما سيدا لوجا سلوي عنده لكن ضد كمجرتي وحال الشيء يدعيرتي مقال كباهيسي جودها كوقبة حفلات ده برتمها سنتر لك مجالات التاجنا إنه يودني يد يود الجرك الصومالي ذا كيش قينيين أين الشجان هداي نفورد نقطه حتى إن النفط هريان أو دياروين وداير تسمرون في يوم عافيمات كقطع يومنا سيدو كله داير توحي نو الشجان إني حل بان محمد أبي لا وصور تقل أي تاي إنه حبسي ساعة صوت تقل ما دام لا شيء إنه دنيرة والشيء يري برنامج كي كعدون كيان لها كنن برنامج كي هلجن كيان لها كنن برنامج كي سمرون لجوه بينه هو كعلوس وبقى عن جلي كعدون كي داير تسمرون يان لها كنن هالصعده هلجن كهالصعده يا ما أرتاي برنامج كان هذا السومال للجوسو نحتورينا يعني تقدر الله سين بيرالي إنك سو ستوسا أو publica ونوهدن أو ونقولهن ما أرتاي ديدا هذا نوع حالة ليه هاي conference أيو لصق قلبه ليري أو يري يعني أقبل الأرنتاس هوشي نوتها سمرون وضدي جوشة كتاجناين فاستدن لسوري هاي أقوانسجة يعني نجور استاجن لو حد أكتين ساعدين لصورها في أنت قف الله حري أيوه برنامج أقوانسجة بس كهذا علماء كجرت عامة كجرة قريقانا كجرة نوع والبو سياسيين بكجرة وحابل لا يقفك أقوانسجة إن يركها الله حبس كجريا ورإلا أنت نوكله ورإلا سومالي أنتم حيل أيضا وحكني في يبا قلاداً وحال مرء هوان إذن أقوان صدام بين عيامبا وتعادى وحاي سمينا إننا بعادمة إنتا سواء لنك سومالي لن عالم كان تقينه مالنت سنين تا قولها أمانك قرامات المدوبي أيا شير دقدقة كيالان الدرب كي من دولة الصومالية أيا أقبالين سيد دقدقة أيا يوقف هرسانيان عدك فيتوغ الدولة استعمالي دونا أما أديكسن دونا وحانا لو شاك إنay كو كتاي دولة الشينة وسوين وقرب استاكتي دولة الصومالية ترينا وحلا أقبالي كرامها ودكستو من نماذج الصومالية لغو إيراننا ينقرب ساينا حتى هالنقطة أفنتري لقوه حدودها الصومالية كجس لغو سوحري مدعوينها جمهورية فدرالك حسن شيخ محمود أفر يلواتنك ساعة لصور دافي حتى إنها مونس كو قبانين مدعوين حسن رتو وانين جيسيا dad baa dawladdiisa xasan markay xaaladda dhabtaa timaado waa geesi waa laga yaabaa dawladdiisu inay dadka la shaqeeya xasan ayaa niman jilicsan ah from ra'iisul wasaaraha ilaa maartay golaha wasiirada ayaa niman iska aan siyaasadda maartay aqoon badan u lahayn oo laga yaabo dhalinyaro xasan ay soo wada shaqeeyeen inay wada yihiin oo uu yaqaano maartay background-kooda dabeecadooda inuu la dhaqmi karo dad uu isticmaali kara inay yihiin لكن أقوم دي أرمد بدأين أقولها لكن حسن الشيخ محمود حق الجيس النمدا يدفاع وجيس النما لمبروان كقاعد حاجة ربطة بدحوينه كنت هجاميو عالم كيولا هذي ولما أنتوا تكيري وين الصومالية الجرب استكتان لما أنتوا ويكأقبلن ما لحظة بريء أفريقيا يا مغشات دكوجهن ومغشات تجي دونا مالما صوص على الرجينية يلو أرنت سلوع عن باريني سيدو كله وراها برلمانك labada aqalba ayaa iyagana ka fadhiisanaya islaamaantadan ka fadhiisanaya ayaguna ka soo saari doona warmurtiyeed Soomaaliya talaabooyin waxay qaadi doontaa ayna Somaliland mahadin doonin talaabooyin waxa la qaadi doona oo Cabdiraxmaan Cirri xaqiiqada dhabta kursigiisa ku waayay doon kursigiisa ayuu ku waayay doona ayaga ayaa gacmaha la isu gelin doona waana laga dhax qaadi doona wixii ay dhax keeneen gudaha Soomaaliya gabiyaha barnaamijkeena inta ayaan ku soo gabagabeynay khayr barnaamij sii shirgaray meel fogna gaarsiya intaan midkaan mid lamid ah ku kulmi doona waxa ay ka tagayaan sida ay noo gelin